الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. أيها الإخوة، أيها الأبناء، أيها الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وخير ما نستهل به في هذه الجلسة أو في هذا الاجتماع هو إعادة الشكر والحمد لله تبارك وتعالى، فإنه له الحمد والشكر ظاهرا وباطنا. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. إلهي baa mahad iskale tabaaraka wa tacaala. walaalayaal, isagaa mudan xilli walba iyo xaalad walba in loo mahad celiyo likamaali daatihi wa asmaa'ihi wa sifaatihi. maxaa yeelay ilaahay tabaaraka wa tacaala sidiisuu u ammaanan yahay oo waa xamiid oo ceeb iyo dhimanaan ma laha. waa midda labaad ee allah tabaaraka wa tacaala wuxuu ku ammaanan yahay oo ku mahadsan yahay linicamihi alatii laa tuxsaa, nicmooyinkiisa aan la tira koobi karin ee kuwo muuqda iyo kuwo qarsoonba isugu jira, kuwo caam iyo kuwo khaasa. marka ilaahay tabaaraka wa tacaala ayaan marka hore u mahad celinaynaa. bacda daalika kelimadu waxay ku saabsan tahay sidii horey baa laydinku iclaamiyey cajziga ama bilaxraa kasalka iyo sidii loo daaweyn lahaa, ruuxu ula dagaalami lahaa, ruuxa aan qabinna siduu isaga ilaalin lahaa, ruuxa u cudurkaasi ku dhacana sidii laysaga daaweyn lahaa oo uga bixi lahaa. waa mowduuc runtii maanta muhima. wadciga aynu ku sugannahay iyo xaalkeenna markaad fiiriso, maxaa yeelay waxaa inaga qaalib noqday cudurkaas oo aahaar fara badan iyo saameyn fara badan runtii inugu leh. marka in aan daraasayno shayga sababtiisa raadinno, daawadiisa raadinno, maxaa yeelay ruuxa ama mujtamaca haddiiba wahsigu ku dhaco kasalkaas, wixii uu qaban lahaa ruuxu hadduu ka cagjiido ama mujtamacaba uu ku dhaco cudurkaasi si guud, macnaheedu wax weeye wax injaaza ma yeelanayo, intaaj ma leh, wax soo saar ma leh, ruuxu wax hadafa uu gaari kara ma jiro, wax badan ma xaqiijin karo. nolosha wuxuu noqonayaa ruux nolosha ka dhacsan oo wax weyn aan naftiisana ku kordhin karin, bulshada iyo mujtamaca iyo bashariyadana aan wax badan ugu filayn oo wax badan aan soo kordhin karaynin, wax yar aan xaqiijin karaynin oo wax yaroo ujeeddooyinkiisa ka mid aan gaadhi karaynin buu noqonayaa. sidaas daraaddeed raad xun buu ku leeyahay shakhsiga, kadaalika mujtamaca iyo bulshadana raad xun buu ku leeyahay cudurkaasi wahsiga ah ama la yidhaahdo kasalka lagu yidhaahdo luqada carabiga ah, soomaaligana caajiska lagu yidhaahdo ama wahsiga lagu yidhaahdo. ruuxii inay ku cuslaato, wixii uu qaban lahaa inuu ku cuslaado. waxaynu uga hadli doonnaa insha allahu tacaala mowduucan dhowr qodob. qodobka koobaad inaan qeexno muxuu yahay caajisku ama kasalku muxuu yahay. waxaan ka hadli doonnaa sidoo kale qaybaha uu u qaybsamo marka la fiiriyo meesha uu ka soo fulo. waxaan ka hadli doonnaa sidoo kale asbaabta keenta. waxaan sidoo kale ka hadli doonnaa qaabka loo daaweeyo oo muxuu ahaayey cudurkaa isaga laysaga daaweeyo iyo daawooyinka lagu daaweeyo ayaan insha allahu tacaala qaadan doonnaa. marka hore qeexiddiisa iyo tacriifkiisa alimaam ibnuqayim caleyh raxmatullaahi ayaa qeexay. wuxuu kala saaray waxa la yidhaahdo alcajz iyo kasalka.
ولبا النبي صلى الله عليه وسلم دعادي سكوكل ميي اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل مركا وحو قيحي عجز محل هذا كسل محل لها وحليه هي الإمام ابن القيم عليه رحمة الله العجز عدم القدرة على الحيلة النافعة عجزك وحا ليدهدا inaad awoodi kari weydo ood awood u weydo iyo tabar xeeladii ku anfici lahayd wixii nafciga lahaa sababtii aad ku gaari lahayd inaad kari weydo tabar u weydo cajzi baa la dhahaa wuxuu yidhi walkasalu cadamu liraadati lificlihaa sababtii iyo xeeladii aad ku gaari lahayd shayga nafciga leh adigoo kari kara haddana inaadan rabinba waad kari kartaa awooddeedii waad leedahay xubnihii waa kuu fayow yihiin waad qaban kartaa laakiin inaad qabato ma rabtid cadamu aliraada lificlihaa taasaa waxaa la yidhahdaa kasal la yidhaahdaa marmarka qaarkood labada kelimo isku yacni wax weye macnaha way isa siiyaan oo marbaa cajziga waxaa loo isticmaalaa macnaha kasalkaoo kale laakiin kasalka asalkiisu waxa weeye iyo kan ana Soomaali afka Soomaaliga caajiska lagu dhaho waa wixii ood qaban karto oo aad awoodi leedahay oo xubnihii aad ku qaban lahayd aad leedahay oo wax ka hortaagan uusan jirin oo haddana aad muxuu ahaayay dhibsanayso ood ka cuslaato oo aad ku dhiiran weydo oo qalbigaagu uu dooni waayo taa waxaa la yidhaahdaa kasal baa la yidhaahdaa mar kale wuxuu leeyahay imaam ibn qayyim alayhi rahmatullah عجز وحو يدى عدم القدرة عجز وعدم الإرادة كسل وإسلام معنيه يوكالوه شيء هدادا كري كرين عجز باليده هذا هدي آد كري كرتو لكن آدن دونين إناد سميسانا كسل باليده هذا قرآن كريم كأه الله تبارك وتعالى وكإنه الشيء labadii wiil ee uu dhalay nabiyullaahi aadam aabaheen calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wassalaam markuu mid ka mida walaalkii dilay muddana walaalkii uu waday oo bannaanka yaallay waa kii ilaahay tabaaraka watacaala markii dambe u soo diray tukaha shimbirkan tukaha la yidhaahdo oo tusay siduu walaalkii u aasi lahaa suuratulmaa'ida siduu ilaahay ku sheegay tabaaraka watacaala markaasuu wuxuu yidhi يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فواري سوءة أخي يعني ميان كعاجزي إن أن ولالكي ميتكي سأستره ومحوء هاي أن للك قليو ميان كعاجزي بوليه مركا وكري كرا وأود بوليه هاي لكن كما هنون مصمين وكان عسوبي مركا وعجزي بمعنى loo isticmaalay isagoo ruuxu awoodi karaya haddana inay ama aqoontu u diido ama tabartu u diido intaba cajzi waa la dhahaa inta haddaan kaga soo tago macnaheedu waxa weeye marka la soo koobo waxaan hadda ka hadlayno shay aad kari weyday oo duruuftu ku diiday ma aha ee waxaynu ka hadlayno waxa weeye waa shay aad kari karto awooddiisina leedahay haddana aad inaad samayso aad ka cagjiidayso aad ka culus tahay aadan doonaynin muxuu ahay kaas weeye kaana waa midka kasalka la yidhaahdo ee shareecadu ay kasalka u taqaano wahay waxaana la yidhaahdaa altathaaqul can taxqiiqi almaqsuud baa la yidhaahdaa yacni wixii la rabay in la xaqiijiye maqsuudka ahaa ee samayntiisii inaad ka cagjiiddo oo ay kugu adkaato kugu cuslaataa la yidhahdaa taa waa qeexitaanka oo macnaha caajiska oo bimacnaa kasalku macnihiisu kasal yahay waxaan uga gudbaynaa qaybihiisa muxuu u qaybsamaa waxay yidhaahdaan culimmadu waxaa loo qaybiyaa laba qaybood kasalu lcaqli wa kasalu lbadani waljawaarix baa la dhahaa in ay xubnuhu waxaan dhihi lahaa midda hore caqligu inuu caajiso oo macnaha waxaa laga wadaa xubnuhuna way cibaadaystaan caqliguna waa cibaadaystaa mid walba cibaadadii loo abuuray inuu samayn kari waayo oo ka cuslaado ayaa la yidhaahdaa kasalka oo maalan caqliga waxaa loogu talagalay inuu ilaahay aalaadiisa nicamka ilaahay iyo aayaadka ilaahay kowniga ah iyo kuwa tansiiliga ah intaba inuu
caqligu uu ka shaqeeyo inuu fikiro inuu yani wax u fiirsado inuu tadabburo inuu tafakuro marka caqligaagii haddii uu aayaadkii ilaahay kowniga ah iyo kuwuu soo dejiyey hawshii loo dirayo shaqadii uu qaban waayo waxaa la dhahayaa waa caqli caajizay waa caqli bimacnaa wax weeye kasal ku dhacay baa la leeyahay midda labaadna waxa weeyaan waa badanka iyo jidhka caajiska ku dhaca oo isaguna waxa weeyaan wixii wanaagsanaa in aad ka cagcuslaato in aad dooni kari weydo adoo awooddiile inaad samayn weydood ku dhaqaaqi weydo taana waxaa la yidhaahdaa cajzulbadan waljawaarix xubnihii baan samaynayninba qalbiga laftiisii waa iska marmarka qaarkood wuu rabaa wixii waad jeceshahay waad doonaysaa laakiin kuma tillaabsanaysid mana samaynaysa arrintaa iyada marka labada qaybood baa loo qaybiyaa mar yani bini aadamka caqligiisay ku dhacdaa marna jidhka iyo xubnaha ayay ku dhacdaa inta haddaan qeexidda kaga soo baxno waxaa mudan inaynu tilmaanno shay kasta oo bini aadamka isbeddeloo ku dhacayaay asbaab buu leeyahay bini aadamku asal ahaan yacni ilaahay tabaaraka watacaala dabeecada uu ku abuuray baa jirta oo uu ku yimaado laakiin wax walba sabab buu leeyahay marka nusuusta la fiiriyo qur-aanka kariimka iyo sunnada nebiga sala allahu calayhi waaalihi wasalam oo cudurkan aad uga hadlay oo siyaabo kala gedisan u tilmaamay markaynu fiirinno waxaan dhihi karaynaa asbaab fara badan baa keenta nusuustu waxay sheegtay asbaabta keentay inuu ka mid yahay shaydaanku oo isagu wixii wanaagsan oo masaalixda adduunyo iyo midda aakharaba leh aan la rabin bini aadamka oo bini aadamku inuu guul darraysto oo uusan waxba xaqiijinin oo uu fashilmo ayuu ka shaqaynayaa ta labaadna waxa weeyaan annafsu alammaara bisuu waa nafta kugu jirta muxuu ahaayey xumaanta ku amraysa wanaagga iyo khayrkana aan kula jeclayn oo iyadana shaytaankay wada shaqaystaan oy saaxiib yihiin labadaasaa inta badan asaas u ah bini aadamka iyo caajiska ku dhaca iyo inuu waxba xaqiijin waayo ama uu fashilmo oo wax badanay u suuroobi waayaan khaasatan waxa uu doonayaa hadduu yahay daaco iyo wax aakharo iyo ilaahay u dhoweynaya tabaaraka wa tacaala hadduu yahay inta badan halkaasay ka yimaadaan asbaabta keenta caajiska haddaynu asbaabtaasi sii tafsiilinno waxaa ka mida ruuxa caqiida xumadiisa khaasatan munaafiqnimada iyo iimaankoo daciifa lianna iimaanka ruuxu waa shayga xoojiya oo xubnaha xoogga geliyo weeye markii ay xubnuhu wax khayra samaynayaan ama wanaag ku tillaabsanayaan ama inay ahdaaf xaqiijiyaan doonayaanba waxa xoojiya oo qalbiga xoojiya oo xubnaha dira oo sidii injinkoo kale ama matoorkoo kale riixa waa ruuxa iimaankiisa iyo intuu dhan yahay qanacsanaanta uu shayga ku qanacsan yahay baa qayb weyn ka ah sidaas daraaddeed baad arkaysaan qur-aanka kariimka ah markii ilaahay tabaaraka wa tacaala wax maslaxadeenna ku jirto inoo dirayo waad arkaysaana waxaa lagu bilaabayaa yaa ayuha aladiina aamanuu mu'miniintiiow baa la leeyahay bimacnaa waxa weye qodobkii ama mabdi'ii shaygan inugu riixi lahaa oo injinkii oo kale baabuurka injinkiisii oo kalea marka hore la baraarujinaya laynoogu yeedhayaa yaa ayuha aladiina aamanuu kadibna wixii layna amri lahaabaa ka dambeeya macnaha waxaa sii xoojinaya walaalayaal munaafiqiinta rabbi tabaaraka wa tacaala markuu ka hadlayay fi lqur'aani alkariim wuxuu ku tilmaamay wahsigaas iyo cajsigaa ayuu ku tilmaamay khaasatan taacaadka iyo waxyaalaha khayraadka markay samaynayaan aayad qur-aanka ka mida rabbi wuxuu ku yidhi waidaa qaamuu ila asalaati qaamuu kusaala yuraa'uuna annaas salaadda markay isu taagaan way istaagaan salaadda ayagoo wahsanayoo caajisan ayagoo cadjiidaya taasi waxa weye waa xubnihii waaye qalbigoodiina ilaahay waa ka warramayoo wuxuu yidhi yuraa'uuna annaas qalbigana istustus iyo inay dadka istusaan baa ku jirta xubnahoodiina waa wahsanayaan oo iyagoo caajisan bay salaadda isu taagayaan
آيات كلا ربي وحده تبارك وتعالى ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى صلاة مي مادان إلا إيغو وحسن يموي محاكياني منافقين تصوت وحوي وحني سمين يان مر ميسنا صلاة كمي قناع السنة عبادات كما قناع السنة طاعة كما قناع السنة مر هدينا كو قناع السنين عكشيد الرفاد يا عاجز بيكو إيمانا يان مرك الروح إيمانك يا الرميسنان تشيق والرميسية هي مبدأ قيب وين بيكتهي إن أو سفر فرعوني لا أسميه وقدم ككوباد وهاي مركزتو الروح إيمانكيسو حوغيستو واد أركيسا وحد كدريميسا مركابا وحو نقون يا الروح فرعون وضاعاتكي كفر فرعون وعملكي صالحة كفر فرعون وعلمك برشدي سأفر فرعون ووحصو صار لبو نقون يا الروح إنجازادي وحصو صار لبو نقون يا مركزتو الروح إيمانكيسو هوسو دعوه إذا النتيجة إذا ولا قدر يا وحو نقونيا روح محو أهايي وحول بكو أذجيهين وناجي تشعل لكن وناجي أن سمينين أو وحيب محو أهايي بور سي سوق بور كوريو كلا أما السماء فورا يا كلو كل نقونيا وحي رقبت مركو دوني إنه قبط قضب كاس وقضب ككوباد وأنا قضب كأساسي قوي قضب كاللبادي وحويان هي السبب تلباد سيدا أوليه هي الإمام ابن الجوزي عليه رحمة الله وحوليه هي يعني الموجب للكسل حب الراحة وحيالها واجبية كينا يعني وحويان وحسيقة عاجسك وحيالها كينا وحا كمدا إنو الروح إسكتش عليها إنو إسكر راحيستو إنو إسكر نسنستو إنو نولشي سكوقاتو مرو تشيفو يمرو عيارة يمرو ضاحيو يعني النسينة فرحة بدن إنو إسكر نست الروح وحي كمتهي وحيالها كينا عاجزك oo ruuxu dabeecadiisu haday noqoto inuu ciyaar ku noolaado raaxo inuu raadiyo haday noqoto bimaana wax way waxyaalaha adag ma waajihi karo yani nolol adag ma waajihi karo wax adag uma sabri karo inta badanna adduunyo aakhiro marka doonayso inaad lib gaadho inaad guul xaqiijiso marka doonayso waxay u baahan tahay adag iyo sabir bay u baahan tahay qodobka saddexaad ama sababta saddexaad wax weeyaan yani waxay yiraahdaan kadalika al-faragh وسيلة للكسل والقعود عن إنجاز المهمات يعني الروح فراقضة هي الشقلانتو وحي كمتهي أسبابتك أنت وهسيقة هي الروح إنه مهمديسي يوحو الربي أهدافتيس إنه حقيقين كريوها بمعنى وحي واكي نبي قانو الله صلى الله عليه وسلم فراقضة هي الروح إنه قعم مرينيهي إنه وقتي هيو ضدك إنتو ضبطن كما فايستان نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس وكي النبي صلى الله عليه وسلم لبا نعمو ضدك انتو ضبضاني وكتسويهين وكسر ميان ويدافيان ايقون كفايديسنين وحو النبي صلى الله عليه وسلم وضا النعمة وحو كشيغي الصحة والفراغ عافماتك هي فراقضة marka ruuxu markay firaaqadu ku badato oo muxuu ahaayay uusan shaqo haynin oo bataaladu ku badato shaki ma laha waxay keenaysaa markaasi inuu wanaagii ka wahsado inuu waqtigiisii marka meelo kale iyo wax maala yacni ay waxaan faa'iido lahayn inuu waqtigiisii galo oo ruux wax soo saar lama noqonayo markaana asal wahsi baa u noqonaya waxa kamid ah asbaabta waxa kamid ah culimadu sheegaan at-taraf oo macnaha wax weeye ruuxu in uu muxuu ahaay nicmada adduunyada iyo barwaaqadeeda inuu ku kala tago inuu barwaaqada israaciyo inuu macmacaanka israaciyo inuu nasiinada israaciyo oo uusan waxba qabsanin مثلا waxay ku miithaaliyaan ruuxa hadduu shaqooyinkiisii isagu uu qabsan lahaa cid kale isaga wareejiyo wuxuu caadaysanayaa oo dhaqan u noqonaysa inuusan waxba qabsaninba sidaas daraadeed baa waxa fiican bay leeyihiin wixii adiga aad qabsan karto inaad qabsato wahay nabigeenu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi waa kii saxaabadiisa ku tarbiyeyey ilaa heer uu gaadhsiiyey inayna dadka waxyaalaha caadaadka ee bini aadamku u kala baahan yahay xataa oo bannaan oo isaga bannaan inay ka kaaftoomaan ilaa heeray gaadheen in mid iyaga ka mida ushu hadday ka dhacdo uusan mid kale iisoo qaadhihin bal inuu isagu u dego oo uu soo qaato marka
inuu ruuxu isbaro acmaashiisa inuu qabsado, shaqooyinkiisa inuu qabsado, inuu isagu shaqeeyo. haddii kaleeto jidhka wuxuu baranayaa tarafka iyo raaxada faraha badan waa la tegaysaa. waxaa ka mid ah asbaabta ay culimmadu sheegaan, waxaa ka mid ah oo wahsiga keena, waxaa ka mid ah ruuxu inuu iska badiyo cuntada iyo cabitaanka. kahratu الطacaam washaraab, israafka waxa la yidhaahdo. allah tabaaraka wa tacaala siduu qur-aanka inoogu sheegay, wakuluu washrabuu walaa tusrifuu. cuna oo caba laakiin ha xad gudbina. bimacnaa shay walba xad buu leeyahay. shayga asagoo maslaxo ah haddana xaddiisa haddii la dhaafiyo wuxuu isu bedelayaa lid buu isu bedelayaa. yacni waxaa ka soo baxaya waxyaalo fara badan oo adraar ah oo bini aadamkii dhib ayaa ka soo baxaya. marka waa kii nabigeenu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayhi, maa mala'a aadamiyun wica'an sharan min baطnihi. bini aadamku ma buuxiyo weel ka shar badan calooshiisa. waxa weel la buuxiyo waxaa ugu shar badan uguna dhib badan inaad caloosha buuxiso. nebigu wuxuu yidhi sal lla alay wasalam, bini aadamka waxaa ku filan luqaymaat oo yuqimna bihaa sulbahu, waxoogaa afgelisye ah, luqmado uu gaajada isaga saaro oo dhabarka ku toosiyo oo uu ku noolaado. intaasaa ku filan. hadday laga maarmaan noqoto inaad cuntadii badsato ama cabitaanka badsato, haddaad ka maarmi weydo buu nebigu yuri sal lla alay wasalam, fathuluثun liطacaamihi wa thuluثun lisharaabihi wa thuluثun linafasihi. caloosha marka saddex u qaybiyo, qayb cuntada geli, qaybna cabitaanka geli, qaybna ha bannaanaato oo ka neefso oo hawada u daa, hawada ka qaado. hadday laga maarmaan noqotoba inaad badsato, halkaa ha dhaafin.